بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا أصحابت أقباد هيلث كوكين أقباد مانتا وحينا وضا بعر بر لغو سميي oo isaga latarkiisa lagu xashay oo fiitamiino iyo nafaqo badan laga sameeyay sidaas uu u ekaaday asxaabtana la joogtay waa mahadsantihiin kuwa cusubna soo dhawaada waxa naga dheefaysaan waxaan baad naga dheefaysaan insha Allah hadii la haydno noo subscribe gareeya burka isagoo sidiisa in badan la xashto ma fiicna waxa fiican wuxuun qudaarta kamid inaan ku darsatid ama bocorka ama bataati macaanka ama waxa soo lagu darsado sidaan u sameeynana soo dhawaada nala fiiriya hadan bilaabayna insha Allah marka asxaabta ugbad healthy cooking maanta halkaas waxa noo yaala bocorka oo bocor gaduud yelowga ah bocorka isaga dhowr nooc ah mid waa cadaan mid waa yelowgan mid waa si kale waa waaweyn waa dhudhuuban marka intaas oo nooc bay u qaybsamaan bocorka waan soo fiiqay markaan soo fiiqayna saan u jarjaray hadaan saa u jarjar bahalka shabaqaas baan ku riday hadaan ku riday maxaan rabaa digsigaas biyaha yarka salkaan u dhigay baan ku dhexriday uumi baan rabaa inuu igu bislaado biyaha inuu igu dhex bislaado ma doonayo uumigaasaan ku soo bisleynayaa oo aad ugu soo jilcin insha Allah hadii la idmo dabkan soo saaray oo isku soo noqonayna asxaabta ugbad waa soo noqonay waan ka soo qaaday bocorka waa kaas isagoo aad iyo aad u jilicsan oo sidii maxaan ku raadayay bur la qasoo ka sii jilicsan yahay soo ma jidaan qaadada yarta caaga markaa saas ku yiri aad iyo aad u jilicsan yahay oo wax jilicsan baan ka dhigay soo burka kugu dhaxashmo waa kaasa meeshaan ka soo gur inta yarta waan iska reebay sababta burka aan ku xashay waxa weeyaan nus kiilo iyo rubac weeye baan ugu talagalay waan isku qasayaa waxaan waa burburinayaa markii aan ka baabi'iyay waxa la leeyahay waxyaalaha kuskuuska ah xabada akunta bas baan ku daray ukun badan ku daray insha Allah hadii la haydmo isaga nafaqadiisa wata midaas aan ku daray waa fixisadii burka halkaas qaado wili aan buuxin wax yar oo cusbaa taasna wax yar cusbaa weeye waa ku darayadana insha Allah marka intaas aan isku qasayaa aad baan isku qasay koobkaas waxa igu jira caano aan soo diyaarsaday koob weyn way adigu waa caano qiyaastii hal galaas ka badan hal galaas waa ka badan yihiin adigu waa galaasku waa 500 ml adigu ilaa 700 ml way caano meelahaas asxaabta raali ahaada meeshaas waxa iiga batay kaamirada iftiinkii wixii dhan isla cadaaday laakiin kulay miinankii iyo qaabka aan sameynay waa la fahmay wax dheeyo ma jiraan waxa ku badan iftiinka kaamirada iigu batay waxaan rabaa inaan si fiican isu dhaxgeliyo waxaasho u hagaajiyo hadii Allah idmo saliida yarta baan ku darayaa waa olive waa saliid olive si burka waxaan ku raadayay isaguna uu u noqdo bur isu dheelitiran saliida yarta olive ka baan ku darsaday qiyaastii adigu 2 qaado kama badna intaan ku daray 2 qaado oo cunada lagu cuno burkii ma hadda ku bilaabayaa soo ma jeedaan markaan wax cad aan keeno meesha kaamiradu waa cadaanaysaa marka hore la rajis gareeyay cadaankaas ku dhigtay la mushkila kulay waa hawsha sida wada waa loo jeedaa burka waxa fiican inaan burka khali ah aadan samaysan burka khaliga ma fiicna mar walba wax iskaga dar aan cunada hadda waxaan ku darsadaa markii aan bur ama canjeelo ama aan samaysanayno waxyaalaha baal kale oo dhan sida galeyda masagada qamadiga wax tiro badan oo baalala oo dalkan ku badan waxay cunaan cerealkaas cunaane waxyaalaha wada cereal aan soo shiidaa canjeeladan ku daraa maxaa ku radaa muufadan ka samaysanaa sidaas caafimaad roon marka waliga bur kaligiisa samaysan hadii ilaahay idmo waxyaalaha isu dheelitan samaysan burka marka waa isdhex galiyay asxaabay waa kaasa waa soo dhaxgaliyay waa soo diyaariyay waa kaasa wax yar baa marka u kaadinaya hadii Allah idmo inta yarta aan soo dabooliyaa hadda inta yarta aan soo daboolana ka bacdi hilib yar baan sameynayaa oo qudaartiisa wata oo aan rabo inaan maanta dhexda ka geliyo la socda asxaabta ugbad soo daboolinaa insha Allah hadii la idmo markuu soo faxan isku soo noqonayna birtii daawada dabka saarsaday awal baan hilib yar oo aan dhacaanka ka saaraa meesha iigu jira waxaan ku darsaday basal iyo qudaar iyo barbarooni baan ku darsaday iyo kabsar iyo waxaasna dib baan kaga darayaa iyo waxyaalaha spices ka dib baan uga darayaa si fiican baan isu dhaxgelinayaa hadii la idmo burka marka nooc kasta u samaysan kartaa ama hal xabo fiisan balaaran baad ka dhigan kartaa oo qudaartan dhanba hal mar dhexda ka gelin kartaa inta 2 qaybood 4 qaybood ka dhigatid ama waa kuuskuusi kartaa hadda in yar
baad dhexda ka gashan kartaa sida hadba uu ku fiican yahay. burka waa kanaa waa iisoo faxay in yar waan badnayn ka hor iyo labo saxanku waa cad yahay saxamadu waa cad yihiin kaamadu waa caddahay laakiin laa mushkila wax shidaa ma jiraan. burka waa kuskuusayaa asxaabay sidaasaan leeyahay ma aanan fidin xoogaa wuu jilicsan yahay hilibkan dhexda ka galiya marka hilibka dhexda ka galiyana sidaas baan ugu kuskuusayaa sidaas ujeedaan baan ugu kuskuusayaa haddaan saa ugu kuskuusana wax yar baan gacantaydan ku fidinayaa umaba baahnaba inaad ku fidisid kal iyo waxaasi uma baahna soo ma jeedaan. waxaa ka dhigan kartaa casho waxaa ka dhigan kartaa qado waxaa ka dhigan kartaa quraac hadba waxaa doontid maalmo adigu kaga bedelo waxaa kaga bedelataa canjeelada iyo bariiska iyo kaga bedelo insha allah haddii lahaydna. burkuna waa wada bocor meeshaas marka waa nafaqo caanana waa lagu qasay qudaartii iyo hilibkii oo dhanna waa kaasaa maasha allah tabaaraka allah. waa wax maxaan ku radaa si wada dheeli tiran balance diet ah. birtaan dabka soo saarsanay weli kaamarada waa khaldan tahay soo ma jeedaan burku siduu yellow u yahay waxaa ka batay bocorkaa ka batay yellow weeye saa'id ah yellowgaa ka batay. marka asxaabta saasaan kusoo wadaynaa burka oo dhan qaabkaasaan usoo dubaynaa dab saliid badan kuma darin wax yar oo saliid yarta olifka ahayd baan hoosta kaga ku dhibciyey markuu guduto oo labadiisa dhinacay kala gudutaan insha allah haddii lahaydma dhinaca kale u rogeynaa waa kaasaan sidaas fiican buu noqday oo guduudan soo maartaan asxaabta ugbaad sidaasuu noqday. wallaahi waa maalintii waxaa la yidhi maasaan maalinba noogu samaysid wax aada u macaan weeye wax aada iyo aada u macaan. sidaasaan kusoo wadaynaa nooca rabtaa burka loo samaystaa burka hadduu kuu yaallo waa waxba ma diidiyo isagu wax kasta sidaasaan marka kusoo wadaynaa asxaabta ugbaad. qeybtaas waa qeybtii koowaad qaybtii koowaad kaasa haddaan ka guraynaa maasha allah tabaaraka allah soo ma jeedaan dhexdiisana hadda qudaarta adduunkaa ku jirta. saliid ha ku shiilin badan birta waa nooca la dhaho non stiga oo waxba aan qabsanayn weeye wax qabsanaysa ma leh dufan yaraha ku filan ama iyadoo sideedaba saarsaari karta intaasaa ku filan haddii ilaa idmo soo ma jeedaan. saliid yar oo olifa baan saa ugu dhibciyey intaas ka badan ma loo baahna. burkii oo aan soo fidiyey oo jilicsan oo aan aadna u adkayn hadba intii ku leedahay gasho ama labaha kuu qaado ama saddexa kuu qaado birtaada gasho. bir kastana waa lagu dubi karaa xataa tan canjeelada ku dubo laa mushkila inaad tan oo kale hataa maaragtay aad raadisi ma aha. asxaabta ugbaad waa kaasaa burkaasaan kasoo tuurnay quruxda badan oo macaanka badan oo maasha allah maraq yariisaan u sameeyey yaanyo yar oo aan shiiday iyo waxyaalo yaryara baan baan ka sameeyey maraqaas. haddii aragtana sidiisa ku cab ku cun haddii kalena maraqaas ku darso adig kuu taala oo wax aad iyo aada macaan weeye. qaabkaa rabtaa u samaysan kartaa asxaabta ugbaad na dhiirigeliya soo dhawaada markaan dhexda ka kala jira daya markaasaa qudaartii waa dhexda kaga jirta soo dhawaada walaalayaal. subscribe iyo like iyo share noogu dardira dadka na soo dhaweeya na dhiirigeliya waa mahadsantihiin asxaabta ugbaad healthy cooking.